لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن سوغاني سورة الزخرف آيات لباتن إيا صدحات. وكذلك سيدا سوكاله ما أرسلنا ما أن نصدر من قبلك أذيك هرتا نبي محمد في قرية دقمئية تولد حدث من نذير مد أدق أو نبي إلا هدان صدرنا قال وحيده جرين مطرفوها دقموينكا إيا قريوينكا كودي لوبر واقعي مالقبينكا أها إنا أنه وجدنا وحان هلالني أون سوغارني آباءنا آباياشني أو يدنو على أمة دين إيا طريقة كركي دين باطلة وي وإنا أنقنا على آثارهم رادت كودا كركودا مقتدون كوا كوديانا يا أيان نهي أو كوا سان كوديانا أديك كوا ما ديانا نبي محمد ومركا كوا نقاضو أديك اللفت هذا السيدي مان تلوليه هي يينا كدبي وي نبي قال لك ولا دردار ما يايو لو سبر سينيا قال وحير النبي يا رسولك أولو جئتكم حتى هدان إذن لئمت بأهدى متكهنون بدن مما شيء وجدتم أدهشين أو سوغادين عليه كركيس آباءكم آباياشين أو تقتدون ميات قضيانيسان آباءكم آباياشين ميات اسكا قضيانيسان قالوا مركا وحيدين إنا أنقوا بما شيء أرسلتم لإذن لصدري به ما قبل رسولي كافرون كوكا قالوا بي أيان نحي ساسيكو نحيا فانتقمنا وان كأرقو صنبي لألا منهم قال ذا حقو ذا فانظر فيري كيف سيدا كان هذا عاقبة المكذبين كو الرسوش بينية عرب دنبيت كورو عاقبة المكذبين كو الرسوش بينية عرب دنبيت كورو ماشا وكدن بيا فيري ومضي نوح لوط ثمود عاد حقيقة دنبيين ومدي النبي محمد عاصدي بدر حقيقة دنبيين ولا وده هلاقي أو وكيل الله يوي ساسو الله ليه سبحانه وتعالى واذكر حسن نبي محمد إذ وقت قال أويري إبراهيم قال أوكيري إبراهيم نبي الله إبراهيم لأبيه وقومه إيريتلكي إنني أنيقو براء بريء أيان كأهي مما شيء حقي تعبدون عابديسان ayaga maxaa u diiday marka in sidii nabi ibraahim ay ku daydaan oy u diidaan waxa ay ayaga aabayaashood caabudayaan iyo reetolkood oo inaa wajadnaa aaba'ana ay leeyihiin ila alladii wax laga soo reebay oy caabudayeen oo sax ahaa ma jira ila alladii allihi mooyaane fataranii i abuur bilaabay oo fa innahu allahaasi sayahdiini wuu i hanuunin doonaa waa midka i hanuunin doonaa sanamyi iyo ilaahayba way caabudi jireen marka waxaad caabudaysaan waan ka gaaloobay ilaaha keligii umaana ka gaaloobin ilaaha aad caabudaan keligii kamaana gaaloobin laakiin shirkiga aad ku garab wadaan ayaan ka gaaloobay wey wajacalahaa wuxuuna ka yeelay ibraahim weedhaas iyo kelimada tawxiidka ah kelimatan kelimad ayuu ka yeelay kelimadaasoo baaqiyatan hadha oo ku dambaysa fii caqibihi ciribtiisa dhexdeeda ciribtiisana waxaa laga wadaa awlaadiisa iyo tarankiisa laga wadaa oo kulligood sidaa ibraahim bay wada dhihi jireen lacallahum waxay mudan yihiin nimankan reer quraysh iyo gaaladani yarjicuuna inay soo laabtaan oo ilaahay u laabtaan bal iskaba dhaaf matactu waan u raaxeeyey reer quraysh bal iskaba dhaafee matactu waan u raaxeeyey haa-ulaa'i kuwaas reer quraysh wa aabaa'ahum iyo aabayaashood iyo awowyaashood xataa intii jaa'ahum uu uga yimid alxaqu xaqi ورسول إيا رسول حقا كتاب كبا لقوضا إيا قرآنك ورسول إيا رسول ونبي محمد رسول كاسو مبين عد ولما قرتي جاءهم أيمد أيغا الحق حقي قالوا وحيدين حقنا وكتابك قرآنك يا نبي محمد قالوا وحيدين هذا مدكن قرآنك محمد سحر ويه وإنا أنقنا به إساقا كافرون وكقالوا بي أيام نهي وقالوا وحيدين لولا نزل محل سودتشن واي هذا القرآن قرآن كان على رجل من كركي محل سودتشن واي أو من القريتين لبذت لمدود كأهاضي ننكاسو عظيم وين لبذت لو حيكوضان مكة إيا طائف بيكوضان لبذا ننا وحيكوضان
maka waxaa jooga ay rabaan in qur'aanka lagu soo dejiyo weliid bay rabaan, khaalid bin weliid aabihii weliid bay rabaan, weliid ibnu mugiira. daa'ifna waxaa joogay curwata ibnu mascuud, kaasay rabaan, nin caaqil abuu ahaa agtooda, ninkaasay rabaan kitaabka in lagu soo dejiyey. maxamed oo miskiina maxaa loogu soo dejiyey? ahum ayaga miyaa yaqsimuuna qaybiya raxmata rabbika, rabbigaa naxariistiisa. nebi maxamedo, qur-aanku waa naxariis, naxariista rabbi mayagaa qaybiya oo ciday doonaan ku hagaajiya. naxnu annagaa qasamnaa qaybina baynahum dhexdooda maciishatahum noloshoodii iyo waxyaabahay ku noolaanayaan, fil xayaati noloshii dhexdeeda, noloshii addunyaa ee dhoweyd, adduunyada intay joogaan maciishadooda annagaa qaybina ayuu alla leeyahay. meesha ay dhahaan carabtu, khaasatan suudaantu ay dhahaan man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu, qofka aan mulkin karin quudkiisa iyo cunadiisa iyo wuxuu ku noolaan lahaa ma mulkin karo qaraarkiisi iyo ma'aalkiisi iyo noloshiisa dambena ma mulkin karo oo gacan uguma jirto. warafacnaa waan kor yeelnay bacdahum barkood fowqa bacdin qaarka kale korkooda darajaatin darajooyin ayaan uga kor yeelnay. warafacnaa waxaan uga kor yeelnay bacdahum qaarkood fowqa bacdin qaarka kale korkooda darajaatin darajooyin ayaan ka kor yeelnay oo way ka darajo sarreeyaan. sababtu maxay tahay? liyattakhida su u samaysto bacduhum barkood bacdan qaarka kale sukhriyan mid u layliyan si uu uga samaysto. addoommadii waad aragtay way ku leeleeyihiin, ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kala fadilay oo qaarna xor baa laga dhigay oo way sarreeyaan, qaarna addoomaa laga dhigay oo way u laleeyan yihiin oo waxay doonaan bay ku qabsanayaan oo shaqo ah. waraxmatu rabbika, rabbigaa naxariistiisa nebi maxamedow ayaa khayrun ka khayr badan mimaa shay xaggii yajmacuuna ay kulminayaan oo adduunye iyo wax dhaldhalaalkeeda ah. walowlaa an yakuuna annaasu, haddii lala-yahay, walowlaa haddii lala-yahay an yakuuna inay ahaadaan annaasu dadkii ummatan ummad, ummaddaasoo waaxidatan mid ah oo gaalnimadka ku midowday haddii lala-yahay, lajacalnaa waxaan uga yeeli lahayn liman duulka yakfuru ka gaaloobaya biraxmaani allaha naxariista badan, libuyuutihim guryahooda waxaan uga yeeli lahayn suqufan saanqaafiyo oo min fidatin fida ka samaysan oo ka ahaaday. laakiin waxaa laga cabsanayaa dadkii oo dhan gaalnimada inay isugu tagaan, sidaasaa fida looga dhigi waayey. wa macaarija iyo jaranjarooyin ayaan uga yeeli lahayn, jaranjarooyinkaasoo yadharuuna ay ku fuulaan ay ku koraan calayhaa saanqaafyada iyo guryaha korkooda. kuwaana waxaa looga dhigi lahaa jaranjarooyinka, xataa waxaa looga dhigi lahaa fido iyo dahab baa looga dhigi lahaa. waa meeshuu nabigeenu lahaa low tazinu dunyaa cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa minhaa alkaafira sharbata maa, aw kamaa qaala calayhi salaatu wassalaam. adduunyada hadday u dhigmi lahayd ilaahay agtiisa garab kaneeco, gaalka waxba lagama siiyeen, biyo in kabashadood in la egna lagama siiyeen, laakiin ilaahay agtiisa waxba kama ah. maxaa gaalada dahab iyo fido guryahooda looga dhigi waayey? inay ummaddu ku midowdo gaalnimo, oo ummadda ilaahay baa la badbaadinayay. gaaladii maanta waxaa laga daba ordayaa ayadoon dhaqaalaba haysanin, weynba haysanin, in badanoo ka mid ihi. haddii dahab iyo fido looga dhigi lahaa guryahoodana ka waran, ummadduba waxay ku wada midoobi lahayd gaalnimo, gaaladaa la isugu wada tegi lahaa oo la raaci lahaa. wallahu aclam wa axkam.